بسم الله waxaan salaamayaa ummadda muslimka oo isugu timid meeshaan waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi mahadda sare ilaah baa iska leh waxaan u mahad celinayaa inta shirkan soo ajiibtay oo ka kooban degmooyinka Hobyo hoostaga oo uu nagala soo qayb galay Maxamuud Cawaale gudoomiye ku xigeenka degmada Hobyo gaar ahaan baan ugu mahad celinayaa mahad celinka bacdi saakay intaana waxa isugu soo baxday waa dadkii ama gudoomiyaasha ka ahaa degmooyinka ama wakiilada ka ahaa ama xoghaynta ka ahaa waxaan halkan ka cadeynayaa sidii gudoomiyihii iga horeeyay oo mataqaanaa ceel dibir anigana waxaan ahay magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Xirsi Barre waxaan ahay gudoomiyaha Budbud degmooyinkaas arean maaragtay u hooseeyo maaragtay xagga xeebta u xiga meeshaas waxa weeye kiiloomitirkeeda markaan isku celcelino waa 500 oo kiiloomitir oo isku wareega tuulooyinkaas Hobyo hoostaga ilaa 73 ilaa 72 iyo wax kale hadda la degan yahay ama baraaga ama dhul kale oo la degan yahay dhulkaasi wuxuu qabaa baahi tiro badan oo maaragtay hadii la yiraahdo reserve ah oo aad iyo aad maaragtay baahi tiro badan buu qabaa markaan baahiyiisa gudbino xanuumada coronavirus ama covid-19 sidii maaragtay adduunku u yaqaan maaragtay abaartii oo ayixii aad u saameeyay iyo abaarihii oo awalba hore u jiro ku soo laalaabtay ayixii oo maaragtay cawskii xoolaha ka dhameeyay saad ogtihiin gobolkan dadku xooluhu ku tiirsan yahay xataa baddi ayadoo jidaan dadku wuxuusan haysan wixii uu kalluunsan lahayo maaragtay qalabkii uu leeyahay baahidiisa marka inta kuma koobi kara dhulkaas waxa kamid ah caafimaadkii waxbarashadii hadii la yiraahdo maaragtay adeegii maaragtay bulshada oo aan gaarin waxaan leenahay marka hay'adaha meesha ka hawlgala sida FOW oo kale oo assessment samaysa waxaan codsanaynaa deegaanka haddii ay maaragtay assessment ay sidaas ay sax ka tahana waxaan leenahay in ay cadaalad sameeyaan oo maaragtay haddii ay assessmentigaas cadaalad ay u sameeyaan qolada WFB oo maaragtay ayaguna deeqda gaarsiisa waxaan leenahay ayadana maaragtay haddii ay yiraahdo in ay maaragtay ilgooniya ku fiiriyaan maantay maadaama gobolkan uu xoolaale yahay xoolihiina wax abaar ku dhacday iyo wax beeclaan ku dhacday wax shaqeyn waay ay yihiin waxaan leenahay maantay intaan waxa isku keentay maaragtay dhib jira iyo maaragtay hadii la yiraahdo cabashay ku saabsan yihiin soo gaabinaya macnaha labada hay'adood oo wadanka u badan oo maaragtay FAO iyo WFB waxa ay meesha geeyaan wax anfaca ma ilaa ay assessment ku sameeyaan oo ogaadaan baahida meesha ka jidha waxa ay meesha geyn waayaan wax ay geyn jireen waxaan codsanaynaa inaan isla aragno ka wada hadalno ay ka joojiyaan horta maaragtay waxa calaq ah ay u tuurayaan waana mahadsan yihiin